بسم الله الرحمن الرحيم. qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii barqanimadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa la dhigay isbitaalada ku yaala gobolka Banaadir si dadkaasi xaaladooda caafimaad loo dabiibo. qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore ee bar control oo laga ilaaliyo garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. xilliga qaraxa uu dhacayay ayaa mashquul ay ahayd goobta uu qaraxa ka dhacay waxaana halkaasi ku sugnaa dhalinyaro fara badan oo ku shaqaysata mootooyinka loo yaqaano Vicon iyo Bajaj iyo dad xajka u socday sida la sheegay iyo dad xilligaasi ku sugnaa halka uu qaraxa ka dhacay. isbitaal Madiino oo la dhigay dadkii waxyeelada qaraxa ka soo gaaray si xaaladooda caafimaad loo dabiibo ayaa Shabeelle TV uu booqday oo qaar ka mid ah ehelada dadkii geeriyooday ayaa ka warbixiyay dareenkooda. Saadaam oo laba wiil la dhalatay oo ku dhintay qaraxa ayaa dareenkiisa sidan ahaa. magacay waa Saadaam hadda waxa jooga isbitaal Madiina laba wiil mid ay yeelan walaalahayga waa mootoley qarax oo ku geeriyoodeen hadana qaadna rabnaa dad badan yaalo meede ilaahu naxariisto leenahay dhaawacan ilaahay caafiya leenahay. Khadiijo Nuur Saleebaan waa Cabdikariin habaryartiis waxayna ka hadlaysaa sida geeridiis loogu soo wargeliyay iyadoona wajigeeda laga dheehanayay murugo xanuun badan. aniga Khadiijo Nuur Saleemaad anigoo habaryartiis saaka nuska saaca suurda ka soo kacay hooyo waxa sir kun shilin oo ma isi kun shilin shaambada waa soo qabeysay waa soo baxay kadibna meedkiisa allay keeni ilo wareediyo dhanka saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala isbitaal Madiino ayaa Shabeelle TV u sheegay tirada dhimashada iyo dhaawaca 16 qof oo dhaawac fudud ah markii adeeg caafimaad loo fuliyay ayay dib ugu noqdeen xaafadahooda waxaana la jiifiyay 12 qof oo kale xaaladooda adkeed iyadoona isbitaalka la keenay ilaa iyo 15 qof oo meyd ah. dhinaca kale dadkii dhaawacyada ka soo gaaray qaraxaasi oo Shabeelle TV uga warmay xaaladooda caafimaad oo haatan lagu dabiibayo isbitaal Madiina ayaa ka warbixiyay xaaladooda. Qadar Xasan xilliga uu dhaawacmayay waxa uu waday mooto Bajaj. magacaygu waa Qadar Xasan Cusmaan alxamdulillah dhaawaca wuxuu iga soo gaaray feeraha ilaa iyo hoos alxamdulillah waa madarna waa fiican sidii hore waa dhamaa. markuu qaraxa dhacay halkee ku sugnayd adiga? qaraxa markuu dhacay waxaan ka imaaday hoolka Sahal waxaan u sii socday dhankan iyo school police number 4 meesha oo controlka checkpoint ugu yaala maray meesha qarax ka dhacay. waa gartay adiga maxaad ka shaqeynaysay meesha? anigu waxaan ka xeynayay bajaajan waday marka anoo bajaaj wadaa marka qaraxii uu dhacay. waa gartay dhalinyaro aad taqaanid oo waxyeelo dhimasho iyo dhaawac ka soo gaar ma jiraan? wallahi laba qofood ii saarneyd qof ma ka warahayo qofna lugta ka jabay ogaabis lugta macnaha ka jabay dhaawac ka soo gaaray ka warahay iyo gacnaha iyo feeraha. hadda waa sidee xaaladaada caafimaad? والله الحمد لله إله اللهم مهدينا وحي إلهي كان الحمد لله وصفي عنا حنون واسخجنا. Sakariye salaad duur ayuu tukanayaa wuxuuna dhaawac ka soo gaaray gacanta midig iyo lug. magacayga waa Sakariye xaaladeyda caafimaad boqolkiiba boqol fiicanahay wax yar dhaawac yar fudud ay soo gaaray alxamdulillah aadna waa fiicanahay. dhaawac halkuu ka soo gaaray? waxa igu soo gaaray waxaan ka soo baxay maxaa la Big Man raajitada waxaan u socday dhanka number 4 markaan dhagax aan soo dhaafay oo qaraxa meesha ka dhacay. qaraxa marka halkuu ka haleelay adiga? gacanta wax yar iga soo gaartay iyo lugta wax yar iga soo gaaray bas. Jaamac Maxamed Saalax Shabeelle TV Muqdisho.